aniga waxaa la yidhaha magacayga Macaawiye Cabdulla Fiido baa la yidhaha ganacsatada waxaan ka mid ahay reer Beledweyne ka mid ah lacagtan Puntland inooga timiday doollarana looga qaatay waxaana looga qaatay raashin waxaana looga qaatay qudaar waxaana looga qaatay macaamilo badan oo naga dhaxeeya awalow ku shaqaysanayna haddana waxa dhacday lacagtii waa idigu dhacday in la yiraahdo oo Puntland ay diido oo nagu soo celida lacagta oo la geey karin hadda dollarkiina ayda qaadatay kaashkiina anagu nagu heray wax koob shaa maanta lagu camalo mala masaakiinta ku shilno xataa la siiyo wama haya maanta dhibaatada saa jirto wax alla wixii wax nooga qaban karo wax nooga qabtaan wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaah lacagtan waa lagu shaqaysanaa walba markii hore waa lagu shaqaysanaa Puntland loo qabto waa ku shaqaysan jiray haddana Puntland aa diiday lacagtan ugu yaraan waxay socotaa 10 sano ay socotaa kadibna waa diid Puntland lacag kale cusub ay soo saartay tanna oo faytir waa iska saartay waa diid waka maamulka gobolka iyo madaxweynaha Hirshabelle ma waxaan ka codsanaynaa in lacagahan meeshii ay nooga bedelmi karaan looga bedelo dawladii soo saartay lagu celiyo xaqaynina laga siiyo lacagahan waxa keenay Puntland keentay horeyna waa u sheegnay dadka ma taqaan Puntland hadda magaalada lacagta hadii lagu shaqaysanayo hebelow yaa keenay lama dhahayo moogta waa la shaqaysanayaa qof laanta dollar oo haasta dollarka laga gadanayaa macaamilaha ka dhacay meeshii ka bacdi yaa lacagta keenay iyo lacag kontrabaan ma ahayn lacagta markii hore hadday noqoto hadda la dhigi karaa yaa keenay hadda ayaa magaalada soo gashay la dhigi karaa bergo kale laakiin awal caadi ah hadda si caadi ma lacagtii shil Soomaaliga sideedayba u dhamaatay wax yara ka dambeeya lacagtii siyaad barre ka hartay dawladii siyaad barre wax yara ka dambeeya waxa kale oo dhan dada soo sameystay waxda soo sameystay la keenay Cabdi Xalna maalina la yiraahdo nabadoon Cabdi Xalna maalimaana lacagtan lagu dhacday oo meesha taalo waa socotaa nimankii la yiri haddana waa dhacday yiri xoolaheeni waa ku baxeen diyaa loo aruuriyay deeqa laga dhiganayay wixii lacag ahaayoo yiri ma socoto ayaga yiri waa socotaana ayaga yiri waa Puntland lacagay soo samaysteen waa loo keeneen maalkaan lahaynay ku qaateen dollarkaan lahaynay ku qaateen eber mugay laga dhiganay yiri haddana ma socoto bareexay ku qaateen mugaan anagu gacan gashay oo diya ninkii ahaay oo keenay oo deeq ninkii ka dhiganay dhigtay ay saas joogtay yiri haddana ma socoto waa nala dhacay waa dhacannahay waa dhibbannahay diya ninkii ku haystay waa ku yiri waxaygiisii ninkii soo dhiibana xooleygaad sii wadaysii oo le nabadoon haddaan nahay dhibkaas gaar ahaan qabnaa waxaan codsanaynaa marka dawladda federaalka maamul goboleedyada waxaan codsanaynaa nimankaas ama in magdhowla laga siiyo ama dawla gacan dheer ay wax lagu aymiyaan waa dhacannahay السلام عليكم ورحمة الله. حسن عبد الله عبد حرو قال لي هذا وأنا هاي إلى لي دان هاي هي دان هاي هتيجي على عد كورة إلى إنك يا عد على كورة هنا ممكن كذا واحد عدها ليري واحد يقول هذي إلى إنك يسا وأنا دعي بدلان واحد له العجوة عشرة لكسي وأنا دعي saasaan u dhacannahay dadkaas iyo duudaas saasay isugu kor baabaayeen wax nafaho saaki ilaa ingiisa ratagi ilmaha ugu biinana saas ugu dhacay bismillaah wabillahi tawfiiq 16 milyan iyo 500 iga dhacdo saas oo martii koob saana ka cabirteen aan ka nooleeysan waxba aan ka qaban bo ilmaha aan ku nooleeysan saas bismillaahir rahmaanir rahiim magaay meel ray Cabdi Muusaf Shiiga lare way bambe intisheenay beesacadaati oo 80 milyan ay meelun sheeni oo ninku koyti Puntland Abdulli Gas hani khiyamay yemelun yani ilaa marjay yani kooti hanagali yemelun oo ka cadaati lacagtaas oo hani khiyamay yemelun sheeni ummadda muslimiinta may ba ku odsadaane lacagtaas cadaati inay bedelo oo yani lacag soo raasna ninka bedela yemelun ka cadaaye wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi dawladda federaalka oo dhexe waxaan u sheegay hiilaan lagu dhacan yahay ummadii oo dhan ay dhacan tahay leebarkii hoose iyo leebarkii labaad labada waa dhacan yihiin hal leebar bas badbaaday oo dadka dawladda ku shaqaysta ah labadii leebar oo ganacsiga ama xoolo lahaa ama beeraley ahaa ama dukaamada yararka dukaameysiga ahaa
kulli gacmaha dhulka u yaallo dadki waa baaba'een masaakiintii waa nagu dhex dhamaatay ECC balaas waxaan ahayn ma jiraan qofkii waa tuugsanaa moobeel ma wato kun lama siin karo carraa isku qarribantay waxaan ka codsanaynaa adduunweynaha iyo caalamka iyo dadka islaamka sheeganaya inta islaam ha shahaadato dowladda hirshabeelle cali cabdullaahi xasan lagaa fadhiyaa waxaan u sheegaynaa ummadda muslimiinta oo gobolka hiiraan ku nool asaa amiiru awal inay asaga u taliyo oo waxa la wixii magdhaba ka qaado dadkii saa noo galay oo lacagtii noo keenay oo haddana nooga baxo yidhi ma naqaano saasaan ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaalkacyo u dhiibay oo waxaa iga jirta 150 milyan 8 milyan aan dhawaana la soo diiday ma qaadanaynay dheen koonfurta loo celiyo marka waa xasuuq caadi ah aniga ganacsatada eeriiraana kamid ah dukaanana leeyahay waana lay wala yaqaanaa deeqa Saleemaana leeyahay aniga lacagta halkaas ay nooga imaado basalaan ku gata aniga